waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Heathrow ee magaalada London wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan oo safar shaqo u tagay wadanka Ingiriiska sidoo warkan magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Axmed Cawil Ismaaciil Axmed London وعساك سبحانمدي هوري كسو دغي garoonka caalamiga Heathrow Airport ee magaalada London wasiirka madaxtooyada Somaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isagu haatan ka soo kacay wadankii magaalada Hargeysa waxa halkan u yimid hawlo isugu jira kuwa private oo u gaar isaga iyo kuwa ku salaysan arrimihii wadooyinka iyo fundraising iyo dhaqaale ururin iyo abaabul iyo kicin ku saabsan sidii wadooyinkii Soomaaliland loo horumarin lahaa gaar ahaan wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Burco iyo Carigaabo hadaba wasiirku markuu ka soo degay madaarka ayaanu nasiib u yeelno halka kula kulano saacadii wasiir markuu ugu horeysa alxamdulillah ala salaamatik bal adigoo si kooban uga warramay safarkaagu muxuu ku saabsanaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي waxaan ku mahadinayaa in nabad qaban ku soo gaaray halkan dhamaantiin intii iga hortimi halka igu timina oo saxaafadda iyo mas'uuliyiinta oo safiirku horeeyana waan idinka mahad celinayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin safarkaygu sida aad carab ku dhufatay wuxuu ahaa amaan hore uga warramayba wuxuu ahaa safarkaygu laba shay mid waa mid gaar ah oo jaamacadan imtixaan ka galiyay oo York University leeyahay baan tagay insha Allah ta'ala laga yaabaa inaan tobaneeyo cisho ama laba week meelaha ku qaato waqti talabaadna waxaan ku tala galay waqtigayga fasaxa ee aan joogo aan hawsha jaamacadda u joogo inaan guddigii ka faa'iideyno waqtiga guddigii ay yimaadaan kadibna aanu fundraising ka sameeyno UK haddii guddiga ama anigu ay suurtagal noqotay Europe loo gudbana Europe in loo gudbo oo special aniga wax laga yaabaa in waqtigu aad igu xidhiidhiyay laakiin guddigu in qaarkood u gudbaan Europe oo ay waxa way farnaysiga saasoo kale sii wadaan waanu kala qaybinay guddiga wadooyinka u ururinaya qaadanka yani wadooyinka waxaan u kala qaybinay qaar Europe imanayo UK ugu soo horeynaya oo aniga iga dambeyn doona iyo qaar u baxaya Sacuudiga labada qolo waxaan qorsheynay qolana inay 10ka bisha soo baxaan halka yimaadaan ama agagaarkeeda qolada kale Carabaha u baxaysaana inay 15ka bisha ay u baxdo Carabaha marka qorshaha aanu qaadanka ugu ururino wadooyinka oo ay tahay wadada ugu muhiimsan wadada Carigaabo wadooyinkana qof walba hadaanu Carigaabo marka awoodeen ama commitment ku jira wadooyinka kale dalkoo dhan way suuqaya mid wada walba qofku uu ku bixin karaa wixii qaadanaha uu hayo muhiimadana isku muhiimad bay nooleeyeen laakiin dalkay u kala priority-ga u kala muhiimad badan yihiin ama waxay u kala horeeyaan xagga muhiimadda iyo importance-ga u kala horeeyaan wadada Carigaabo oo dalkii bad inaga go'an yahay baanu emphasize ka saarayna commitment-na aanu bixinay hore u bixinay inaan ugu yaraan 100 kilomitir dawladahan dhisayno bulshadana u agaasimayno inay ka qayb qaadato marka taasaan u soconaa taasa qorshahayagu yahay dhammaanna waxaan leeyahay oo bulshada ku wacyi gelinaya haday tahay wadooyinka haday tahay horumarka dalka ka wada qayb qaata qof waliba ka qayb qaato way fiican tahay waanan aad iyo aad baan ugu wacyi gelinaya maalinba in shay la isugu tago oo priority number 1 laga dhigto iyadan kuwa kale la dayacayn in maalinba shay la isugu tago si aan awoodeenu u daciifin laakiinse maaha in waxa kale oo dhan la dayacayo oo laga tagayo commitment-kii aanu wadooyinka kale siinaynay ama wax dhaqaale aanu siinaynay waxa weeye wadooyinka kale sidiisii buu soconaya wada walba taageeradeedii iyo qarashkeedii iyo qorshaheedii sidii buu soconaya mana joojinayno haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu guuleeyo wadada Carigaabo waxa qorshahayagu yahay inaan wadooyinka road network dalka oo dhan waxa weeye isku xidhno waxaan rajaynayaa inay noqon doonto program ama qorshe Somaliland guul gaarsiiya aad baa mahadsantihiin sidoo kale waxa dadka halka ku sugayay wasiirka madaxtooyada kamid ahaa dad badan oo madaxa oo ay ku jiraan xildhibaano sida xildhibaan Mubaarak Bidho oo ka soo kacay magaalada Birmingham kana mid ahaa dadkii goor hore iyagu yimi halkan garoonka Heathrow Airport iyadoo waqti hore diyaaradda soo caga dhigtay sidoo wasiirka oo isagu halkan ku soo dhaweeyay si kastaba haatee mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka madaxtooyada ayaa waxa uu si weyn dadku u soo dhaweeyeen dhagax dhigii wadada dheer ee isku xidha Burco iyo Carigaabo oo madaxweynuhu dhagax dhigay iyo sida ololaha ugu jiro inuu halkaasi wax weyn ka qabto iyadoo dhawaan uu safar kaga soo laabtay magaalada Carigaabo ee gobolka Sanaag haddana arrimaha halkan u yimid ay ka mid tahay inuu sii wado farnaysinka iyo lacag ururinta iyo waliba abaabulka sidii wadada Sanaag ee dheer ee Soomaaliland isku xidhay u hirgelin lahayd Axmed Cawil Ismaaciil Somsa TV Heathrow Airport London